السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سو dhawaada meel walba adduunka joogtiin. maanta waxaa idin wadaa galaaska koowaad ee cilaan barashada dadka bilowga ah cilaanka ay baran lahaayeen. insha Allah waxaa fiidiyoga ku anfacaya haddii aad bilow tahay ama dhexdhexaad xataa aad tahay inaad ka faa'iido rajeynaya. daawasho wacan janaalka daa ku cusub tahay please subscribe noo saar. haddii hore aad noola joogtan aad u mahadsan tahay. maanta waxaa wadaa wax yar yacni dadka aan fahansiinayo oo bilowga ah. soo marka fiidiyoga adoo ku anfaca dhamaysa insha Allah ku faa'iideysaa. hadda waxaa sawiraya waxaa wareega yarka ugu horeeyo oo follower walba laga bilaabo. soo marka hadda waxaa sameynaya waxaa waaye baalkaas geeska oo lofka ah yacni qaab loof u shabaha laakiin loof ma ahan. kaas waxaa waa cilaanka midka ugu muhiimsan waa flowerka ugu muhiimsan waaye fahanteen. waxaad kar ka soo bixinaa waxaa waa sagsagta kor waa laga soo bixiyaa hoosna waa laga soo bixiyaa laakiin aniga badan waxaa isticmaalaa midda kore sababtoo ah midda kore qurux badan. marka waxaa waa sagsagta markaa soo jeedid diilinta hadaa aad sameysay laciif noqotaa laga yaabaa marka waa ku celinay diilinta markastoo sagsagta aad sameysay diilinta kor haddii laciif kaa noqoto yacni oo si fiican loo arkeenin si fiican oo muujina oo u jeedin hadda markaa muujis oo qurux badnaatay inaa marka la ku celi sida qurux badan. waa u jeedin hadda soo ku soo baxay markaa u sameeyay sagsagta kor markii laga soo jeedo sagsagta qurux badan tahay. haddana waxaa sameynaa waxaa waaye isla flowerka yariiska hadda aan sameynaya ka bilaabaya kaasaan sameynaya. haddana kaasna muhiim waaye waxaa umaleynaa qof cilaan baranayo oo aqoonin kaas ma jirto wax ugu horeeyo kuwa la isbaro aada u fududiya asna waa kaasaa labada gees aa kasoo wadi kartaa yacni qofka sida u fudud oo sameynaya saasaa marka aniga sida ugu fudud oo sameeya saas waaye. waxaa kaloo idin tusayaa waxaa sameynaya haddana flower kaloo yariis oo fudud wareegii haddana yariiska aan ka bilaaba wareegaas muhiim waaye yacni wax ku soconaa la-aantiis ma jiro. marka waxaa sameynaya odaas oo 3-4 qeyb ah marka kuwa badan waxay ku qurux badan yihiin 4 xabo laga dhigay kii hadaa lofka aan u jeedaa 4 xaba ka dhigay kana 4 xaba ka dhigay sagsagta kora asna u soo bixinaya. maxaa la dhahay waa kaasaa soo kusoo baxo arkeysin cilaanka waxaa waa hadaa baranaysa xataa iskuul aadaysid macalinka waxaa waqti yaroo kooban oo waqti ku siinayaa. soo marka waxaa u baahan tahay ku celcelisid marka waxaa wax kasta ku celcelis waaye inaa ku celcelisid waaye. intaas hadda aan sameynaa waxaa aaminsana hadaa 2 maalin ayaan dhihin 2 mar aa ku celisid ama 3 mar qofku inuu keenayo. marka hal macalin oo tagtina oo meesha ugu tagtina yacni meesha waxbarashada waxaa u maleynayaa inuusan wax ku fahansiin karin yacni saa rabtay maanta marka ugu celcelin karin. markaan waxaa rajeynayaa inaa waxaa la dhahay fiidiyogan ku faa'iideen inta wax barato inta aan wax baraninna insha Allah waa isoo sheegi kartiin. haddaa u baahatiin qeybo kale idin soo sameynayaa oo dadka bilowga ah dadka dhexdhexaadka ah waxaa waa commentiga ku soo qor insha Allah. haddana waxaa galna waxaa waaye qeybtii oo farqaha ama sharaxaada cilaanka ah. farqahan eegana waxaa waa muhiim waaye cilaanku ugu quruxda badan oo cilaanka loo isticmaalo waa farqaha haddii la dhaho. kuwa kaloo badanna way jira insha Allah waa idin baraya waa idin tusaya fiidiyogan dhexdiisa. marka waa kaasa u sameeye tartiiba u saarooya xataa saa u fahantiin. waxaa waaye hadda waxaa soo baran waxaa waa 3daas yaryar oo kuuskuusan oo waxaa waa 3daas iyo farqa hadda isku darti xataa waxaa wax kale ma u baahnid intaas hadaa koo baratid inta kale adaa iska dhisi karo insha Allah. marka kuwa kale ay inta doonan waa arki doontaan farqaha kale farqahaas hadda saasay u jiraan. farqaha kalena waa kuwaan waxaa waaye warwareeg waaye dhexdooda la buuxinayaa marka way kala tiro duwan yihiin. kan hadda waxaa waa 4 xabo iyo xabadii oo korka ka jirto shanaad. ka hadda hoos ku sawirayaan waxaa waa 6 xabo 3 iyo 3 iyo kii kore oo 7
marka marba midka rabtida isticmaalaysaa oo maxaa la dhahayaa ujeedina darta inta xab ee ka tirinooyo suurina hoosta iska geliye labadaba iska soo dhawaadeen dhiman ahaan laakiin muhiimadu waxaa waa inaa fahantiin hadduu buuxiyo ujeedin marka buuxiye marka xilli waxaa jirto 6 xaba u baahanta inaa isticmaashid oo cilaanka farqi dheer u yeeleysid marna waxaa jirto farqi yar oo u baahan tahay yani iyaga u baahan tahay farqi gaaban marna kana isticmaale marna kaas isticmaale muhiimadu waxaa waa shape-keena iska qurxisid aniga sida qalinka iga xun qalin xun iga soo gadeen fahanteen marka waxaa muhiimadu waxaa inaa fahantiin farqaha si kala duwan marka hadana farqi yariis oo qafiif waliba qalinka yani waabeenka dhigay ma ahe had still xataa kan rabe igu sawirin qayb markala ku celinaya farqahan eegan waxa farqa labada gees laga keenay sag caleenta raqiga camal ay shabahan marka waa kaasa meel kasta gali karta eegana qurux waay ina bartin aad u fiican tahay hadda xooga qalinka iyo roonaadaba qalinka xunka ay dhibe marka kan caleenta raqiga uu egyahay waa ujeedin eegana qayb kamid ah farqaha waaye ama sharaxaad iclaanka saa u taqaanidba wuxuu egyahay caleenta raqiga ujeedin caleenta raqiga waa idin tusinayaa si uu egta iyada naftarkeeda caleenta raqiga naftarkeeda laba u kala baxdaa laba qayb soo marka qayb waa kana qayb taas oo egtahay hadda farta ku taago qaybna midaas burburan oo farqi burburna hoos ku sameeyay egtahay marka waa kaas sag la soo siino waa soo jiijiido ma ahe kuma celcelino hadda waxa u bixinaya waxa waaye af yariis oo bixinaya hadaa rabto u bixin kartaa hadaa rabto iska deyn kartaa يعني labadaba waa sameyn kartaa marka aan labadaba intusa hadda soo af la'aan oo intusi hadan af oo bixiye markasta waxa fiican ina hoos ka soo bilowdid hoos hadana ka soo bilowaya kan marka caleenta raqiga shaqo badan ma rabtaba sag leesinay marka u baahan tahayna yani hada u baahan tahay af oo bixin kartaa wax normal ah intaas ma la arkooyo la ku qabana kaamirada oo ma jeedin ina la arkeenin marka ay sidii lay ku wadaa afka loo bixinooya marka waxa rajeynaa macaan fiican idin noqdo waxa idin sharixi karo insha Allah hada ka heshiin commentiga ugu soo qora waa idin soo badinaya fiidiyoashan oo kale hadana waxaan sameeynaa waxa waa caleenta raqiga oo maxal dhahay burburan oo taa tan hada afarta ku taago u eg aan sameeynaa hadana fiirsasho wacan labo hadda wuxuu kala duwan yihiin waxa waaye way ka buuran tahay yani ka muuqaal dheer yani kana muuqaal dheer yani aad u muuqdo labadana caleenta raqiga waaye midna waa qafiif midna way burburan tahay afa oo bixinooya hadda hadaa rabto adiga afa oo bixin kartaa hadaa rabtana iska deyn kartaa hadda dhaxan ka bilaabay laakiin mar walba waxa fiican in hoos ka bilowdid si waxba kaaga qaldamin hadda inta aan ka tagaa soo dhameystiraya leenkan kala hadda hoos ka bilaabaya soo ujeedin aniga marka isla markii aan af ku bixiyo qofba wuxuu sameeyaa dadka qaar waxay sameeyaan markay mariyaan kadib ay af ku bixiyaan laakiin waxaan jeclahay marka xabada mariyaba in af ku sii bixiyo marka waa kaasa asaasoo kana ku soo baxay waa isla caleentii laakiin wuxuu kala duwan yihiin bas farta qafiifka iyo farta burburan marka waxaan dhan hadda aan sameeyay saa kala isticmaal lahayd yani meelaha ku isticmaal lahayd waxa dhan waa idin soo fiidiyoga dhaxdiisa insha Allah kaga bogan doontiin waxa fiidiyoga dhameeyo insha Allah cilaanka horta inta u muhiimsan waxa waa farqaha caleemaha iyo maxaa la dhahaa iyo wareegida hadda bahalaas kuskuuska lafloofka u sameeyay kaas lafloofka u sameeyay kaas waxa ka sii muhiimsan waxa waa cilaanka in farqaha iska baratid farqaha hada baratid waxa kale oo dhan aad ku fududaanayaan hadda waxa sameeynaya marka wax yar oo flow yar sameeyna farqaha ugu daraa iyo waxa dhan la socod insha Allah wareega sameeynaya
kii hadaayo laflafku ka dhaxda gashanooya flowerkaas kaasna wuxuu ku qurux badan yahay badanaa 4 xab inaa ka dhigtid 4 xab ka badan kuma qurxoono 4 yani 4 gees u sameeynaya 4 gees oo sameynaysa sagsagtiya hadan u sameeynoya ila fiirsado insha Allah waa kana hada farqihii hadaaya isticmaalina sagsagtii riista aha oo caleenta raqiga u ekaa geesaan gelin rabaa waxa yarka flower yarka aan soo sameeyay waa aragteen marka saasoo kale geesaha ugu isticmaalaysaa flowerka mar walbo arabtid inaa flowerka xirtid yani oo meeshas aad ku ekeysiisid waxa u sameynaysaa farqo ama sharaxaad yarta oo cilaanka hadda waa kaasa maadaama flowerka intaas aan kusoo ekeysiiyey farqayaa u sameynaya kii hadaa 5 xabo intuu sunaa geeskan ka bixiyay kii yariiriska caleenta raqiga u ekaana xagaan ka bixiyay waa kaas had farqo kale xataa uma baahno laakiin wax yar oo kala ku daraya isticmaal waxa flowerka dhaxda yariiska intuu saayo oo lafloofka ahaa farqihi iyo maxaa dhahay wareegaas marka inta kale wax yar iska easy waaye waa baranaysi insha Allah intaas hada ku celcelisid loo biri wallahi been ku sheega wax kasta waqti yar in la geliyo barashada cilaankana aniga way ila fududahay haduu qofku waqti geliyo marka waqti geli wax walba waxa baa Ilaahay ku fududeeyo insha Allah waxa loo dadaalay laguma dheefsado marka hadan waxa sameeynaa waxa waaye kan daay in soo tusay asaga dhaxda gelinooya asagana saas camal geesaha wax ka flowerka gelinaya soo kusoo baxaan oo ila arkaysi insha Allah keegan waxa waa igu qaata hargaba ay haayo marka hada videogan ka heshiis soo sheeg kuwa kale idin soo sameynaya qeyb badan ay idin soo sameynaya hadii wax kale arabtina insha Allah way commentiga ku soo qori kartaa commentiidan dhan akhrista aada u mahadsantiin inta dhiirigelisay inta subscribe ka ii saartay kulligiin aada idin kugu mahad celinaya
anna waxaa rajeynaa inay wax iga faa'iidiin oo subscribe-kiina iyo like-kiina iyo qasaare aysan noqonin. marka insha Allah waxaa jeceshahay comment-ga ay soo qori kartaa. waa iska hargabsanaa codkayga la yaabinina. marka waxaa sameynayaa caleentaas magac bay leedahay, magaceed ma xasuusta, laakiin caleentaas qurux waa iyadana labada gees sagsaag laga soo siiyaa. waaye way qurux badan tahay. marka wareegan yariiska hadaaya wax yani imintusi karin, laakiin hadartaan aad u fudud inaan tuso. waa u jeediin waa canjeero la dhahaa, isagoo wareegsanta canjeero camal waaye, laakiin dhaxda wax yariis oo banaana u sameeyay si qurux badnaato. marka hadana mar kale waxaa isticmaalayaa farqi hadaaya idin sheegaya oo cilaanka oo caleenta raqiga isticmaalaya mar kale oo ujeediyo soo qurux ugu noqday. intii hadaaya idin tusale waa wax hada isku dardarooyo, wax kale oo yar oo ku darooya sa uga faa'iideeyay kan insha Allah. oo ujeedin hada waxa riiska ku daraya baalkaas geesaha badan cilaan Suudaanis kale isticmaala, laakiin anaga ma isticmaaleyna sababtoo waxaa rabnaa inaan barano flower walbo anaga flower yariis sameynayno. flower ka soo meel kale ku isticmaali kartaa yariiska waa qaadanay. marka waxaa muhiimadeedu waxaa inaa yani flower walbo daqiiqado yar in ku bar insha Allah. hadana waxaa isticmaalaya farqi hadaaya ay idin baraayay oo maxaa la dhahay oo asaas u baxay ujeedin. dhaxdiisa buuxiye intaas geeska lama arko igaraal noqdo. kaamiradu waa meel ay saarantaa, meel ay u xirantaa amiin. waxaa waaye ujeedin sagsaga hadana geesaha ka soo galiyo waa sidii hadaaya idin tusaayo oo kale leh. flower-kan muhiimadeedu waxaa waaye ina aragtiin yani sida la isku xiraayo. insha Allah waxaan rajeynaa inaad si faa'iido fahansiiyay. waa kaasa marka hada labadooda farqiga ay kala duwan yihiin, wax wadan kuma kala duubno, labada farqa ay ku kala tusay. kana waxaa waaye dhaxda wareega hadaa inta soo dhaxda galiye geesaha flower-ka galiye. waxaa galiyeen wax aad u fudud waa idinka baran kartiin oo waxaa isku keenaysan kartid. canjeeradaas bas iyo caleentaas yani ku kordhan waxa xoogaa ku soo kordhiyay. kana waxaa asna wax badan kuma kala duwan, labadooda muhiimadu waxaa flower-ka hadaa inta tusay saa farqaha u isticmaali lahayd isa asaga